اللي ما تكسو الويس ومالودا اسمعوا تايمانتا كارنكينا دار وسية الشينا وتنازل كاتيا ومالي تياليلا وغيدي قصاتو ما دوت ماما kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka dunida inteeda kale ka joogtaan ku soo dhawaada channelka Baaruud Official daawadayaal maanta waxaan idin wadnaa barnaamij cusub oo la magac baxay Burco Got Talent hadaba barnaamijka waxa daadiin doonta aniga oo ah Najax Naruur iyo sidoo kale Nasr Halda ku soo dhaw Nasr Halda aad baad u mahadsantahay walaalo Najaxay waa markii ugu horeysay ee uu ka qabsoomo magaalada Burco waxaana soo dhaweyn doonaa tartamaha koowaad nasiibka u yeeshay inuu ka qayb galo barnaamijka ku soo dhawow tartamaha koowaad ku soo dhawow walaalo magacaaga iyo xaafadda ka tartamisid iyo heesta ku tartamisid ما شاء الله aad baad mahadsantahay walaasha qaali anigu warka marka ugu horeysa marka si loo eego Burco dhan baan maxay ahayd aan ahay waxaan ahay reer Burco laakiin khaasan waxaan ka tartamaya xaafadda suuq dhaweey la yiraahdo aad iyo aad wad u mahadsantahay magacaygana waxa la yiraahdaa Cabdi Casiis ateen dhaqaajiye horka anigu yar wadaad baan ahayo habeenkii mar allaale markan aan seexdaba waxba la iga formaat gareeyaa laakiin anigu maxay ahayd xalay heesan anigu leeyahay baan diyaarsaday mar allaale markii waagu bariyay baa formaat ay fahanti laakiin imika in yaroo jacayl oo laba qof oo hore isku jeclaa ayaan heestooda baldoonay inaan yar qaado yar heesta waxa hore u qaaday Khadra Daahir Cige labadii istortee isku laamahaye kala laalmi waaye dani kala lugoyse midba geesu liitee liqii waaye ontee midba geesu liitee liqii waaye ontee midba kale la'aantii dhalilaleel kuleeleelay dunidee kulele dunite dilila labadi storte iskula mahaye kala laalmi waaye dani kala lugoyse jalalala midba geesu liitee liqii waaye onte midba kale la'aantii lalalal kulele dunite kulele dunite mayulul gowracay sida laygu kalaadhay lalalal asadigu lamaan tahay sida laygu kalaadhay lalalal asadigu lamaan tahay laabtaan ku galila liibtaan la oylaa soomaynu kala lumin marcaad ceedu leeq tahay laxiyo falaadho lalilale oo laba daruurood la ayskaliyaan caad lagu lingaxay iyo erkuuliidad leeyahay caad lagu lingaxay iyo lalalal erkuuliidad leeyahay sidaa laba isjecelo laydhsanaayo fiidkii kalgaacayl ku noolow kalgaacayl ku noolow aad bad mahadsantiin walaal hadaba waxaan u gudbin doonaa xagga garsooriyaasha iyo natiijada ka soo baxda waa tahay tartamaha koowaad oo ahaa Cabdi Casiis ateen dhaqaatiye malaha ninkaasi marka magaalada teen ka tagaaba waxaan wada dhaqaatiyaa wallahi horta wuxuu soo bandhigay hees aad u qiimo badan sidoo kale ninkaas ciyaar buu ku daray ciyaartiisu ma aysan liidanin aad bay qurux badneed anigu kolley dhankayga garsoorayaasha kale wallahi waxay oran doonaan ma ogi laakiin anigu dhankayga waxaan u hayaa ha uu socday Cabdi Casiis ateen dhaqaatiye nala saayir baan ku dhahaynaa ninkaas ateenka naga dhaqaatiye ما شاء الله عبد العزيز ستين نقاشية runtii waa nin talenti iyo hibale hab masraxiyaadka codka teembada laxanka intaba sidoo la keenay aad buu noo cajibiyay sidii laba jecel oo la dhifanayo fiidkii hees ay Khadra Daahir lahayd buu qaaday ma sha Allah Cabdi Casiis teen dhaqaajiye sidaas oo kale najax garsooraha hore
ها baan leeyahay. bismillah kolley waxaan filayaa anigu waxba u geli maayo heesta waxaas markaa waxaan u hayaa ha soo noqod wanaagsan daawadayaal wada wada jeedin tartamihii koowaad hadda waxaan u yeedhnaa tartamaha labaad kusoo dhawow barnaamijka tartamaha labaad kusoo dhawow barnaamijka burco talent magacaaga iyo xaafadda ka tartamisid iyo heesta ku tartamisid bismillah walaalayaal ku dhawahay waxaan ka tartamayaa magacayga horta marka waxa weeye jamaal caafi baa la dhahaa abwaan jamaal caafi waxaan ka tartamayaa xaafadda London halkan aad baan u faraxsanahay ummaddan kasoo qayb gashay barnaamijka inta leeg marka waxaan ku tartamayaa heestaasoo qaaday cumar dhulla qaaday habeen buu kusoo maxday heesta habeen jacayl ku dhacay bismillah heestaa wuxuu yidhi bismillah walaal heestaa waxa qaaday cumar dhulle heestaasoo markaa odhanaysa daruuriyahay fogaate hawadaha ku faafta maryar baan ku farayaa waxaad faro tiraada daruuriyahay fogaate hawadaha ku faafta maryar baan ku farayaa waxaad faro tiraada dadka faraha badane farxaad aydan ceebow nin jacaylo feerisaday fahmayaa sidooye fooxo ogorida oona faatixeeyaa dadka faraha badane farxaad aydan ceebow nin jacaylo feerisaday fahmayaa siduu yahay fooxo ogorida oona faatixeeyaa sidii salimada waxaan u gudbin doonaa tartamaha labaad garsoorayaasha nagula sugan goobta si ay u keenaan natiijooyinka uu ka gaadhay heestii uu qaaday waxaan ku gudbinaynaa garsoorayaasha kolley haddaan eego tartamaha labaad oo ka tartamayay xaafadda London jamaal caafi oo qaadiyey cumar dhuulo cali la jiki weynaa fanaan aad loo xasuusto heesaha jacaylka ee weliba calaacalka markaan eegay qaab masiixiyeedkiisa jamaal habka uu heesta u qaadiyey toonka iyo codka waxaan leeyahay maya markaa waxaan leeyahay waxaa taa wiil dhallinyaraa ah hibaad leedahay tartankana waa kii koowaad aad kasoo qayb qaadato markaa waxaan kuu rajeynayaa in tartamada dambe aad soo baxdo insha allah waxaan ku leeyahay niyad jabin hore u socon ku leeyahay tartamaha labaad ee barnaamijka oo noqonaya markaa jamaal caafi oo ka tartamayay xaafadda London kuna tartamayay heesuu lahaa cumar dhuule oo runtii ahayd hees jacayla heestaasi markii aan ahaantayda aan qiimeeyey aan eegnay masraxiyeedkiisa codkiisa iyo laxankiisa inta kale uu fiicnaa erayada uu keenay laakiinse waxaan moodaysay inuu degdegsiimiyo uu ku jiro oo heesta dhul badan oo la qabanayo ayuu sii wada deynayo laxankii uu israacinayay marka waxaan leeyahay hadduu degdegsiiyo door dhalo kaasiiyana kiish lacaga buu dhalaa markaa dub in yar ugu noqo baan leeyahay in yar baa kaa dhiman insha allahu tacaala dadaal haniyajabin baan leeyahay markaa waxaan leeyahay maya haddii aan usoo gudbo jamaal caafi oo ka tirtamaya xaafadda London runtii kolley waa wiil dhallinyaraa uu dadaalay intii karaankiisa laakiin laxanka iyo erayada xoogaa adigu degdeg baa ku jiray waxay u baahnaayeen in deganaansho la siiyo ama waqti la siiyo marka aan waxaan odhan lahaa jamaal caafi kolley sida garsoorayaasha hore soo sheegeen inkastoo aan kala duwanahay haddana khasbiyan qof walba wuxuu meesha la yimaado marka aan waxaan odhan lahaa jamaal yare soo dadaal dhankaygana waxaan ku hayaa maya laakiin soo dadaal insha allah haniyad jabin waqti waa badan yahay insha allah waa tahay daawadayaal waxaan soo gaadhnay bartamihii barnaamijka burco Got Talent barnaamijkan kale wuxuu ku cusub yahay gobolka Togdheer waxaa lagu tartamaya dhammaan xaafadaha ka kooban tahay magaalada Burco waxaa la rajeynayaa barnaamijkan inuu Burco ka gudbo oo gobolada kale u gudbo haddii uu socdo insha allah waxaan ku soo dhaweynayaa bartamaha barnaamij qofka dhextaalka waa wiil kale soo dhawow kusoo dhawow walaal barnaamijka burco Got Talent adoo magacaaga iyo xaafadda u tartamisid iyo heesta ku tartamisid ku dhawaay walaal waxaan ka tartamayaa heest qaraamiya oo imika la soo cusboonaysay cabdigaan shaqaado xaafadda kasoo jeedana waa xaafadda October gaar ahaan wafii mukhtaar salebaan baa la dhahaa inaan ismilyaano wey
wadartii haweenkaad gabadh yahay wax dheerto waxyahaagan simaniyo wejigaagan quruxda leh haa wanaagaad u dhalatay iska weerar gelisaya waxa nool adduunyada adaan kugu warwaraya warna imahayside waanadayda maqalo haddii weyne nagu simo jacaylaan wadaagne adnahay waxyeelayn jacayl baa ii wada oo ii witiiqay anige iwalwaalanayo kolna waaban maaye wacadkii xasuusnow wehelkii naftayda iwedhaad tidhaahda wadnahay ku taalayo adna warnay mahayside daawadayaal dhextaalka barnaamijka tartamihii saddexaad ee ahaa ee garabkayga taagan intaanan u gudbin kale garsoorayaasha intii bartan la taagnaa ama tartamayaasha ka horeeyey waa qofka ugu horeeyey ugu cod macaana anaga xaggayaga mukhtaarintana stage ka dhaqaaqin waxaanu anaguna sidoo kale ka codsan maadaama aanu nahay barnaamij daadiyayaashii in mar labaadna uu ku celiyo in yaroo ka mid a heesta jacayl baa ii wada oo ii witiiqay anige iwalwaalanayo kolna waaban maaye wacadkii xasuusnow wehelkii naftayda iwedhaad tidhaahda wadnahay ku taalayo wacad waa tahay haddii aan usoo noqdo tartamaha saddexaad haatan gacanteeda ku jira oo ah mukhtaar oo ka tartameeyay xaafadda wafeeye isla markaasina haddii aan usoo noqdo natiijada anigu dhankayga aanu hayo kolley heestii uu ku tartamay hees aada u qurux badan bay ahayd anu waaban la dhaco waaban u raaciye lahankee heestaasi haddaan usoo noqdo natiijadeeda mukhtaar yare anigu dhankayga waxaan u hayaa ha mukhtaar yare wuu soconaya aniga dhankayga wuu ka baxay tartamaha saddexaad oo ahaa mukhtaar saleebaan kana tartamaya xaafadda wafeeye mukhtaar xagga ereyada iyo laxaan ahaanba u fiicnaa laakiinse habmasrixiyeed daawada haddii kasoo noqono garsoorayaasha intaynan barnaamijka u gudagelin tartamaha saddexaadna afraadna aynan soo qaban nasro dhinacayga taagan ayaan jeclaysta inaan su-aalo weydiiyo nasri kole iyaduna way heestaa laakiinse kamay mid noqon maanta tartamayaasha nasre ka waran horta barnaamijka sideed u aragta adigu wallaahi najaxay barnaamijku barnaamij aada u qurux badan run ahaantii markaa dhalinyaro meel isku timaado oo hibooyinkooda ay mataqaanaa ay soo bandhigayaan dee waxaad arkaysaa kuwo jilayaala waxaad arkaysaa kuwo mataqaanaa hal abuuraa kuwo mataqaanaa codkooda ilaahay hibo u siiyey ay magaranaysaa ay bulshada usoo gudbinayaan run ahaantii dhalinyaradan maanta halka ku tartamaysay dhalinyaro aada iyo aada u wanaagsan bay ahayd nasre caaw haddii lagu dhaho hees miyees lahay wallaahi horta dee dadka markay ka codsadaan waa heesaa laakiin maanta waan heesaa miya heese had ugu jeceshahay heesaan qaado ilan anigu melihii hees alaali heesta maskaxdaada kusoo dhacda noogu hees waan heesaa waa isu soo noqonaynaa waan heesaya soo qabto tartamaha afraad ee haatan kusoo dhaweynaya masraxa soo dhawow kusoo dhawow walaal barnaamijka burco good talent adoo ku bilaabaya magacaaga iyo xaafadda ku tartamisid xaafadda u tartamisid iyo heesta ku tartamisid aada u mahadsantay walaal magacayga waxa weeye shaafici xasan axmed xaafaddan ka tartamaya waxa weeye xaafadda daawudda gaar ahaan xaafadda holland heestaad qaadaysid iyo ciddii hore u qaaday wallaahi heestan qaaday hees qaraami weeye waxaa qaaday fanaankiina weynaa ee cabdulla yuusuf hanuuniye durduriya xareedey doogiyo ogbaadey talaalimaada cadarkiyo
dhibiciyo daruurey ubax daraya muusa waa beri dilaaca markuu maalku daraniyo daal aragtideeday dusha roob la dhacayo dhibiciyo daruurey tiirimaadka laabtiyo daawadii naftayday taan hablaha ka doortee dareenkayga siiyay xubnaa dabacsan leedahay intaas eegta haddii intaasi kaga soo noqono heesta macaan uu qaaday shaafici xasan intaanan ka gudbin shaafici waxaan weydiin doonaa dareenkiisa ku aadan barnaamijkan wallaahi walaal aad baad mahadsantay dareenkayga wallaahi aad maanta lama soo koobi karo waa maalinkii ugu horreeyaan odhan karaaye dhalinyaro halkan isugu timi oo facaale aan ka soo qayb galo halkaa kasii wad baan ku leeyahay ayun gudbinno garsoorayaasha si ay u sheegaan natiijada shaafici uu soo baxdo waa tahay haddii aan usoo noqono tartamaha afraad shaafici xasan oo ka tartamaya xaafadda holan kolley walaahi heestu soo bandhigay hees aada u qurux badan bay ahayd anuaba la qaadayba anuu khadkaba ka baxayba ark marka anigu haddii aan dhankayga jawaabta usoo noqdo anigu dhankayga waxaan sii lahaa ninkaas uu socday aniga kaas igu dhaafay duuduub haabaan odhan lahaa markaa dhankayga tartamaha afraad aan nasiib u yeeshay shaafici xasan oo ka socda xaafadda holand qaadana hees qaraamo oo uu leeyahay fanaanka weynaa ee hanuuniye shaafici erayada laxanka teembada codka muxuma shaafici waxaan leeyahay haa shaafici oo ka tartamaya xaafadda Hudahawd ee Holland markaan eegay qaab masiixiyeedkiisa qaabku heesta u qaadayo aad moodo si degan codka toonka markaad dhan kasta eegto shayga ugu muhiimsan oo ah kalsoonidiisa markaan eegay waxaan oran karaa deganaanta uu soo muujiyay ha daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkan soo qabano tartamaha u dambeeya iyadoo noo hadhay waliba nasri heesteedina waa inanta keliya maanta barnaamijka qaybtiisa koobaad tartamaysa soo dhawaayaan ugu horeyn ayaan ku soo dhaweynaynaa magacaaga xaafadaad ka socotiyo sidoo kale heestaad ku tartamaysa magacayga ayaan baa la idhaahdaa waxaan ka tartamayaa xaafadda October gaar ahaan si ugu dhaweeyo heestan ku tartamayna waxaa la idhaahdaa Khalid Kaamil baa qaada ku khafiifay kulankaaga kana maarmi kari waayay ku dulooyay sawirkaaga kaydin waayay ilmada gocashana la ciishooday ka baadhay kana doonay ka raadshay dunidoo dhan kugu koobay maankayga ku hiloobay kuna xiisay kaarkii xamili waay samahii koobaad ee inan ah ee barnaamijka qaybtiisa koobaad ka qayb galay oo soo bandhigtay hees macaan weliba cod macaan ayaan sidoo aragtay barnaamijka wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan run ahaantii aad baan uga helay waa markii koobaad eed soo istaagtay stage ba mise waa markii labaad wallaahi noloshayga waa markii koowaad aan microphone aan qabto aan stage soo istaagana aad baad mahadsan tahay ayaan weydiin doonaa waxaan u gudbi doonaa garsoorayaasha oo u sheegi doona ayaa natiijadeeda tartamaha shanaad ayaan oo ka socotay xaafadda suuq dhaweeye kuna tartantay heesu qaado fanaanka daada yar ee codka tolmoon Khalid Kaamil ayaan masraxiyeedkeeda codkeeda runtii waa qof talent leh sida fiican ay kalsoonida isugu qabto ay u taagneyd waxaa markii aanu eegnay aan qiimeeyey waxaan leeyahay hore u soco talent baad leedahay niyad jabin ha ayaan oo ka soconaysay xaafadda suuq dhaweeye ahaydna tartamihii shanaad ka tartama burca Got Talent runtii anigu markaan eegay qaabkeeda iyo sida quruxda badan heesta u qaaday iyo hees runtii heesahan imika xoogga looga daba dhacay Khalid Kaamil fanaankeena qaaliga runtii anigu markaan eegay wallaahi dhankayga way ka dhammaystiran tahay waxaan leeyahay ayaan way soo baxday aniga dhankayga way ka soo baxday waxaana leeyahay runtii cod qurux badan iyo
stage qurux badan waad la timi marka hore u soco insha allah marka anigu dhankayga waxaan leeyahay ha heestan ku khafiifay kulankaaga ka dul ooyay sawirkaaga kaydin waayey ilmadayda kohashada la ciishooday waa qofkii ugu horreeyey ee ku tartamaa fanaan reer burca weliba egas octoobara isla xaafadahan suuq dhaweeye ka siiya khaalid kaamil oo ka mid a fanaaninta xilligan joogta ee soomaaliyeed ka ugu saameynta badan ayaan marka oo ahayd tartamaha shanaad markaan eegay heestan codka way soo dhaweysay inkastoo codkeeda gaabnaa haddana meelaha qaar baad mooday in ay wax ka sii yar ahaayeen ay ka yar tegayso toonka marka anigu waxaan leeyahay maya waxaa si toos ah inoogu soo gabagaboway barnaamijkii burca god talent aad kala socoteen baaruud official waxaa natiijadii u dambeysay ee soo saaraysay dadka ka qayb gali doona una gudbi doona qaybaha kale ee barnaamijka intaanan soo xidhin kolay balan baan si hore usii galno nasra inoo joogta nasra markii kasoo dhammaano waxaynu ku wareejin doonaa oo inoo soo xidhi doonaa garsoorayaasha waxaan islaaba way ilowdeen showtii waaweyneed badigu eegta najixay heestan waxaa la yidhaahdaa sida goodir caraa waxaa qaaday fanaanad weyn oo reer jabuutiya faadumo baa la dhahaa laakiin magaceeda aada uma sii garanayo waan bilaabaa sida goodir caraa ma goob liibaaxeed ama guluf coolaadeed ama ciyowga galaabeed ama geeyabaroo laga guuray mooye cid lagacal la-aaneed gabaligu dhacaya guddidii jacaylkaahi gargaarin weydo gudka inan ku iday talaadii ku gooyeen ubaxinaan ogeeyo gacan qaado mooye anna geeridiido kelimaayo ilke anna geeridiido kelimaayo ilke iminka waxaan odhanaynaa inaan halkan oo cod macaana walaalo balkaale xabad heesa noogu yaro dhufo shaafici dib noogu yaro celi walaalo xabad heesa annagaa kaa dalbanee aad bad mahadsantihiin anoo mar labaad kasoo laabtay mar sixii marka heesta adiga custeen ku dhufanaya wadartii haweenkaad gabadh yahay wax dheesho waxyaha ka simaaniyo wejigaaga quruxda leha wanaagga aada u dhalatee riska way hargelisaaye wax ku nool adduunyada adaan kugu warwarayaa waray mahayside adaan kugu warwarayaa waray mahayside haddii weyne inagu simo jacaylaan wadaagne adnahay waxyeelayn jacayl baa iwaato san yahay walaalkan shaafici oo codkiisa tolmoon inoogu qaadayay heesta intii dambe inkastoo ka goosatay najax baan kusoo dhaweynayaa guntiga gabagabadeen soo gaadhnay kule anagu samiicadda waan wareejin doonaa wax barnaamijkii la socotiinaysa waa anaga waa najax naruuriya sidoo kale nasr haldhaa wax halkaad kala socotiina waa baaruud official intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tegnaa asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo sidoo kale garsoorayaasha intaasuu inoogu soo gabagaboobay barnaamijkii baartawankiisii barnaamijkan waxaa ka qayb qaatay 5 qof 4 ka mida way soo baxeen hal inanuun baanu reebnay 4 qof soo baxay oo markaa ku tartami doona saas semifinal lagu sii baxsan oo la tartami doonta cidda dambe baartatuuga barnaamijka ka soo baxda barnaamijka waxaa ka soo baxay cabdicasiis sateen dhaqaajiye oo ugu horreeyey isla markaana 3 ayaa helay kana tartamayay xaafadda suuq dhaweeye waxaan leeyahay cabdicasiis weyno iyo kulanka dambe tartanka dambe ee semifinalka idinkii qaybta ka soo baxda baartituuga mukhtaar salebaan baa ku xiga oo isna 2 ayaa helay kana socday xaafadda wafeeye mukhtaarna waxaan leeyahay inoo iyo kulan dambe oo taranti leh runtii barnaamijka intaas inoogu soo eegyahay oo kusoo gabagabeynay barnaamijka waxaan taaganahay gabagabadiisii
afar qof baa barnaamijka markaa 5 qof baa ku tartamaya 4 qof baa kasoo baxay natiijadooda saxdaan u haynaa laba waxaa hore usoo yeedhiyay walaalka xikam labada ku xigee iyaguna ka mid ah guulaystayaasha barnaamijkan aniga yeedhin doona shaafici xasan oo isaguna ka socday xaafadda Holland anigu waxaan isna waxaan leenahay waad gudubtay dadaal inta in kasii badan ba hore u socon leenahay ayaan oo iyaduna ka socotay suuq dhaweeye iyadana waxaan leenahay waad gudubtay dadaal insha Allah guul baan ku rajeynaa waa idinkoo mar labaad soo laabta part 2ga isugu nimaadno part 2ga cidda ka soo bixi doonta isla markaasi oo ay isugu timaadaan marka finalka barnaamijka Burco Got Talent sida iyo nabadgelyo kaga tagana dhamaantay oo anagoo ah garsoorayaasha barnaamijka Burco Got Talent